عويسي wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta telefishinka BBC London wararkan caawa idin hayno waxa ugu waaweyn Donald Trump ayaa sheegay inuu rajaynayo in shirka G20 ay ka soo bixi doonaan natiijooyin fiican isagoo isku dayay inuu xoojiyo xiriirkiisa Vladimir Putin kadib 3 sano oo dagaal ka socday magaalada bariga Liibiya ku taal ee Benghazi ayaa lagu dhawaaqay in laga sifeeyay kooxaha xagjiriinta ah ma laga yaabaa tan inay wax ka bedesho miisaanka xoogaga Liibiya ku hardamaya toddobaadkanna barnaamijkayga tiknoolajiyada ee Click waxaan idinku haynaa sida qaabka walxuhu isu bedelaan ee lagu sameeyay 3D da daabacada la yiraahdo oo ay caalamka wax uga bedeli karaan hadday tahay caafimaadka iyo cilmiga hawada saraba hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa hogaamiyaasha G20 ku buurisay inay gaadhaan heshiis ganacsi iyo mid isbedelka cimilada iyo tamartaba inta ay ku sugan yihiin Hamburg madaxweyne Trump iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa kulmay markii ugu horeysay iyaguna Mr Trump waxa haysta cadaadis G20 kaga imanaya oo ku saabsan inuu Mareykanku ku soo noqdo heshiiskii isbedelka cimilada ee Paris lagu saxeexay 2015 President Putin and I have been discussing madaxweyne Putin iyo aniguba waxaan ka wada hadlaynay waxyaabo badan wada hadal fiican ayaynu yeelanay waaynu wada hadlaynaa hadda sida cadna way sii soconayaan waxaan rajaynayaa wax badan oo wanaagsan in Ruushka iyo Mareykanka ay ka dhacayaan waa ii sharaf inaan kula joogo mahadsanidin dhankiisana madaxweyne Putin ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay kulanka uu Trump la yeeshay wada hadalka telefoonka lagama dhergo haddii aan horumar doonayno iyo xalka dhibaatooyinka caalamiga ah waxaan hubaashii u baahannahay kulan toos ah waana ku faraxsanahay inaan si toos ah kula kulmo mudane madaxweyne waxaan filayaa in kulankeena uu natiijo wanaagsan yeelan doono amniga ayaa aad loo adkeeyay intaan shirkuba bilaabmin booliska ayaa isku dayay inay dibadbaxayaasha ka fogeeyaan xarunta shirka haddaba shirkani muxuu muhiim u yahay Axmed Xaaji Xasan ayaa ka waramaya dibadbaxayaashu waxay ka careysan yihiin in Putin iyo Trump ay halkan ku sugnaadaan waxaana caradooda ka hortagay boolis biyo adeegsanaya si dib ay dibadbaxayaasha uga riixaan xarunta shirka uu ka socdo rabshadaha waxaa ka mid ah dibadbaxayaal kooban oo tagay goobta shirka hogaamiyaashana waxay filayaan in arrintan la xallin karo waxay ka careysan yihiin dhibaatada ilaa iyo hadda dunida kala geysay indhaha oo dhan waxa ay ku fooraraan madaxweyne Trump waxay tahay in 6 bilood ka yar uu xafiiska joogay iyo inuu shirka la yimaado habkiisa laga caroodo iyo siyaasadihiisa ah in Ameerika ay horeyso hogaamiyaha martigelinaya Angela Merkel ayay si joogto ah isugu dhaceen isbuucyadii la soo dhaafay waxayna noqonaysaa markii ugu horeysay oo si toos ah u wajaho hogaamiyaha Ruushka kaas oo kululayn doono kulanka Vladimir Putin waa suuragal inuu tallaabo u jirsado ninkan ay ishayaan ee madaxweyne Trump laakiin asiga xitaa waa dagaalyahan wuxuu haystay 17 sano oo meel sare uu ka joogay Ruushka shalay madaxweyne Trump waxa uu dhaleeceyn kala dulacay Ruushka oo uu sheegay inay curyaaminayaan nabadda Suuriya iyo Ukraine taas oo iska fogeeyeen labada madaxweyne ayaa hadda is salaamay markii ugu horeysay goob lagu duubay kaamirada dawladda Jarmalka oo kali ah haddii si dhow loo milicsado waa la falanqayn karaa dhaqdhaqaaqa iyo calaamadaha jirkooda ka hor inta aysan yeelanin shir si toos ah isu hor fariisteen oo kullu dhacay maanta isbahaysiga Yurub ee Mareykanka waxa ay soo dhaweeyeen waxa ay u arkeen in Trump uu difaacay qiyamka dimuqraadiyaddooda laakiin waxa ay doonayaan inay ka arkaan inuu u hoggaansamay arrinta waa maalin ay siyaasaddu kacsan tahay haddaba dalkay u muuqan doono inuu siyaasad ahaan awood leeyahay bal iminkana aanu idin tusno muuqaallo toos ama live ah oo ka imanaya shirka G20 ee Hamburg halkaasi oo ay soo gaadhayaan madaxda caalamka ee halkaasi ku shiraya iyadoo lagu kulmayo tiyaatar ku yaala magaalada Hamburg oo madaxda caalamku heeso loogu qaban doono welina waxaa dibadbaxyo ka socdaan haddaba jidadka u dhow shirka muuqaaladan waxaa la duubay daqiiqada ka hor boolisku Jarmalku waxay sheegayaan in ilaa 160 askari ay ku dhaawacmeen
rabshadaha wararku waxay sheegayaan in marwada koowaad ee Maraykanka Melania Trump ay lafteedu ku xanibantay meeshii ay joogtay oo ay shirka ku biiri kari weyday ninkeeda Donald Trump oo kulanka Hamburg ka qayb galaya. faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya moobilkaaga. wararka ka imanaya Liibiya ayaa sheegaya in magaalada Benghazi ee laga sifeeyay ururada xagjirka ah sida uu sheegay taliyaha ciidamada maamula bariga Liibiya General Khalifa Haftar. ku dhawaaqistan ayaa daba socota gabagabaynta 3 sano dagaal socday oo u dhaxeeyay ciidamada Haftar iyo maleeshiyad xagjira. Haftar ayaa ka soo horjeeda dawladda qaramada midoobay aqoonsan tahay ee Tripoli. Qaalib Xasan Baaruud ayaa warbixintan inoo haya. halkan waxaa ka dhacay dagaal qadhaadh oo lagu soo gabagabeeyay gacan ku haynta magaalada Benghazi. jiidda dagaalka ayaa ku koobnay degaan 2 kiiloomitir ah oo ku yaala xeebta magaalada. askar badan ayaa labada dhinacba kaga dhintay dagaalka. waxaan weerarnay qiyaastii 30 daqiiqo ka hor dhaawac iyo dhimasho way jiraan. ciidanka gaarka ah ahaan waan ognahay xilliga ay argagixisada halkan ka bilaabatay. ma dhoweyn argagixisada iyo nooca ISIS-ba waan sii wadaynaa inaan la dagaalanno annagoo uga aargudayna kuwa sababtooda u dhintay. hogaamiyaha ciidanka isku magacaabay ciidamada bariga Liibiya General Khalifa Haftar ayaa ku dhawaaqay inuu gebi ahaanba Benghazi xoreeyay. generaalka oo ku hadlaya erayo diblomaasiyeed oo aan hore loogu aqoon ayaa sheegay inay Benghazi hadda gashay waji cusub oo ah ammaan, nabad iyo dib u heshiisiin. dagaalka gacan ku haynta magaalada labaad ee Liibiya ayaa ahaa mid u dhaxeeya ciidamo daacad u ah Haftar, ciidamo isaga diidan iyo shakhsiyaad daacad u ah ururka isku magacaabay dawladda Islaamka. laakiin dagaalka ayaa sidoo kale calaamad u ah siyaasadda cakiran ee dalka, burburka ciidamada iyo khilaafka guud ee Liibiya gobol u kala jaray. General Haftar waa nin dadku ay aragti kala duwan ka qabaan. tusaale ahaan dadka rayidka ayaa u arka nin soo celiyay amnigii iyo kala dambayntii magaalada, halka ay kuwa kalena ka walaacsan yihiin hamigiisa siyaasadeed. beesha caalamka ayaa weli dabada ka riixaysa sidii loo gaari lahaa heshiis siyaasadeed, waxayna ka walwalsan yihiin in tallaabada General Haftar ay wax ka beddesho miisaanka iyo isu dheelitirka quwadaha Liibiya. waxaana macquula in guusha ciidamada General Haftar ay dagaal u horseedo qaybo kale oo ka mid ah dalkan burbursan. bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. afarta dal ee carabta ah ee hogaaminaya go'doominta Qatar ayaa sheegay in diidmada ay Qatar diiday shuruudahoodu ay muujinayso in khalkhal ku wado gobolkaasi. dadka Qatar qaarkood ayaa qoray fariimo ay ku taageerayaan dawladooda oo ay gidaar ku qoreen. Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Bahrain ayaa ku hanjabay in tallaabooyin dheeraad ah qaadi doonaan. markabka qudhe diyaaradaha xambaara ee Shiinaha uu leeyahay hawlgala ayaa ku xidhay Hong Kong markii ugu horeysay. imaatinkiisa ayaa lagu soo beegay sanad gurada 20aad ee markii Shiinaha ay ku soo noqotay Hong Kong. The Lions markabkan la yiraahdo ayaa dadka qaar u arkaan inuu muujinayo muruqa iyo awoodda Shiinaha. dawladda Mexico ayaa sheegtay in 28 maxbuus ay ku dhinteen kadib markii dagaal dhex maray laba kooxood oo gaangis ah oo ku xidhnaa xabsiga Acapulco. dadka dhintay ayaa midiyo lala dhacay iyadoo qaarkoodna qoortaba la jaray. barisaabka gobolkaasi ayaa amray baaritaan. gobolkani ayaa ah meel dembiyada iyo maandooriyaashu ay ku badan yihiin. Martha Rex oo la adoonsaday ayay markasta riyadeedu ahayd inay la kulanto boqoradii Victoria ee dalkan Ingiriiska. 1892 ayay England uga soo safartay Liberia, waxaanay hadiyad gaar ah u keentay boqoradda. bishan waxay tahay sanad guuradii 125aad ee ay markay la kulantay Queen Victoria. waxaanu halkan idinku haynaa sheekadeeda oo ay nooga warantay mid ka mid ah dadkii ka farcamay. Yaasmiin Axmed ayaa soo koobaysa. Martha boqoradda iyo bustaheeda. Martha Ann Rex waxay ku dhalatay gobolka Tennessee ee Mareykanka 1817 xilligii adoonsiga. qoyskeeda ayaa xorriyadooda iibsadeen 1830 waxayna ku noqdeen Liberia. Martha waxay lahayd hammi.
konton sano waxaan aad u rabay inuu boqorada Victoria aan arko. waxaana aad u jeclaaday markii boqorada ay noqotay. akhbaarteeda waxay nagu soo gaartay markaan joognay Liberia. waan yaraa markii sawirkeedaan arkay. waxaan maqlay siday dadkayga si fiican ula macaamuli jirtay. waxay rabtay in dadka Liberia la siiyo xornimadooda oo adoonsigana laga daayo. waxay u ahayd muuqaalkii aniga aan ka aaminsanaa, laakiin wax yarun bay ka weynayd. kumaysan raagin qolka dahabiga, waana hilmaamay waxay dhahday, laakiin ayada weligay ma hilmaamayi iyo weligay ma hilmaamayi siday ii salaantay. sideen boqorada Victoria ugu imaan hadid la'aan? waxaan siiyey busta xariir ah oo aan ku sharaxay geed iyo caleentiisa, miraha iyo ubaxyo qurux badan. gacantayda ayaan ku tolay bustahoo dhan. maantana xagga isboortiga haddaynu eegno waa maalintii shanaad ee Wimbledon. Victoria Azarenka oo Belarus ah ayaa ka badisay gabadha Ingiriiska Heather Watson ciyaar ka dhacday garoonka dhexe. ciyaartooyga kaalinta toddobaad kaga jira liiska tenista caalamka Marin Cilic ayaa isna ka badiyey Steve Johnson oo Mareykan. Rafael Nadal ayaa isna ciyaartiisii koobaad ku jiray Karen Khachanov. ciyaartooyga ugu horeeya liiska tenista caalamka Andy Murray iyo Fabio Fognini ayaa imika ciyaaraya. xagga kale ee kubadda cagta haddaynu eegnana Barcelona iyo Argentina ciyaartooyga u ciyaaray Messi ayaa xukun xabsiga loogu bedelay ganaax. maxkamad ku taalla Barcelona ayaa u bedeshay 21 bilood oo xadhiga inuu imika bixiyo $188,000. ciyaartooyga 30 jirka ah ayaa toddobaadka loo kordhiyey kontraadkiisii Barcelona. barnaamijkeena tiknoolajiyada Click ee toddobaadkan waxyaabahan idinku hayno waxaa ka mid ah guryo ay robot dhiseen. waxaa inoo haya Cismaan Cabdi Xasan. malaayiin ayaa sanad kasta ku baxda si loo helo farsamadii ugu dambaysay kumana istaagta halkaasi. kooxda Formula 1 Williams ayaa soo bandhigtay qalab ilmaha lagu qaado oo loo adeegsanayo farsamo ku xiran gawaaridooda. qaanadan ayaa loogu talagalay carruurta xanuunsan si badqab ah oo degdeg ah in loogu qaado helikobtar ama gawaarida gurmadka degdega. ma rajaynaysaa inaad ku noolaato guri ay robotyo dhiseen? gurigan 3 dabaq ka kooban ee New Zealand ku yaalla waxaa naqshadeeyey, qorsheeyey, dhisay inta badan daabacadda 3D iyo robotyo. qaab dhismeedkan goloolan ayaa ah farsamo cusub. waxa uu si buuxda u waafaqsan yahay xeerarka dhismaha. hab dhismeedyadan lagu sameeyey daabacadda 3D ayaa noqon kara isbeddel hor leh. qaab dhismeedkan ayaa fidaya isuguna soo ururaya qaabkii hore, isagoo ka jawaabaya kulaylka. cilmi baarayaasha macadka farsamada ee Georgina waxay sheegayaan in ay xooggan yihiin oo aysan meel badan ka buuxinayn. waxaana loo adeegsan karaa hawlaha sahminta dayaxa iyo guryaha gurmadka degdega. tanina waa sida ay u ekaan doonaan waddooyinka casriga ee mustaqbalka. dhinaca waddada dadka ka maraan ayaa marka aad ku socoto waxay dab siinayaan nalalka waddooyinka, sida shimbirtana waa u ciyaayaan. waxaa kaloo ay leeyihiin kuraas shaandhaysa oo nadiifisa wasaqda hawada iyo dukaamo leh rinji wasaqda hawada ka burburiya. waxaa lagu soo bandhigayaa tijaabo yar oo London ka dhacaysa oo wadata rajooyin badan. ugu dambayntiina bal aynu tagno dalka Spain, iyadoo halkaasi meherjaankii ugu weyn uu ka socdo oo hadal badan keena. dariiqyada ayaa dad badan la eryanaya. kumanaan qof oo caalamka oo dhan ka yimid ayaa ka soo qayb galay meherjaanka orodka dibida ee sanad walba ka dhaca Pamplona. dhaqanka ayaa qarniyo hore soo jiray oo ka yimid diin iyo muusig. jidadka ayaa dibadu baacsanaysaa dadka halkaasi isugu soo baxay. intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii caawa. waad ku mahadsantihiin daawashadiinna. intaaynu kulmi doonno Isniinta hadduu eebba idmo. sidaa iyo nabadgelyo.